wacyigelintani ee maamulada degmooyinka warta nabad iyo howlwadaag ay ka sameeyeen xaafadaha ayaa ah mid dadka deegan degmooyinkaasi lagu baraarujinayay sidii ugu diyaar garoobi lahaayeen maalmaha xuriyada ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo food inagu soo heeso waxaana laga bilaabay degmooyinkaasi in guryaha laga taago calanka Soomaaliya oo muujinaya astaanta qaran ee Soomaaliya iyo sidoo kale waxa degmooyinkaasi laga sameeyay nadaafadeen lagu hagaajinayo bilicda wacyigelintaasi ay sameeyeen maamulada degmooyinka warta nabad iyo howlwadaag ayaa waxa ka warbixisay Saynab Maxamuud Warsame oo ah gudoomiyaha degmada warta nabadda maamulka degmada howlwadaag iyo maamulka degmada warta nabadda ciidanka booliiska ee ka howlgala labada degmo saldhigga degmada howlwadaag iyo saldhigga degmada warta nabadda oo ay nagala joogaan labadii taliye ee aragtaan taliye Xuseen iyo taliye Cali guud ahaan inagoo isku duuban waxa inoo socotay isbuuca xuriyada weyneyntiisa sidii bulshadeena degmooyinka ku dhaqan aan uga wada qayb qaadan lahayn munaasabada maadaama ay tahay munaasabad ummadda Soomaaliyeed qiimo iyo qaayo weyn ugu fadhisa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeedna la rabo in uu muujiyo dareenkiisa ku aadan marxaladda maanta la taagan yahay iyo qiimaha iyo qaayaha ay ku fadhiso waxaan shacabka Soomaaliyeed isbuuc maanta caawa inoo maraysaa wacyigelinteeda annagoo ku wacyigelinayna in ay ka qayb qaataan bilicda iyo naleenta calaamaynta guri walba iyo goob walbaba annagoo tixraaceena awaamirtii fulinaynana awaamirtii gudoomiyaha gobolka Banaadir ka soo baxday Aamin Xaaji Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho